kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Barbaarta Media Group oo aad alaaba ka daawataan warbixinadii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saaro gambaleelkana furo muuqaalka like saar una share garay asxaabtaada ku mahadsanid Engineer Faisal Ali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Uud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu hooyadiis caayay caagadna uu ku tuuray dhawaan xilli ay madaxtooyada joogeen waraysi uu BBC-da siiyay maanta ayuu Faisal Ali Waraabe ku yiri waan qarinayay ee madaxweynuhu ila dagaalamay hooyadayna wuu caayay caagad uu gacanta ku hayayna wuu igu soo tuuray anigu xafiiska jooga waxaan ku yiri iska daa Ramaax waa xogayahaygii arrimaha gudaha isna wuxuu jiri waa sidigay warbixintan aynaan ka hor dhicin waa kan Faisal Ali Waraabe oo waraysi siinayay BBC-da kusoo dhawaada أنا ما يسوق أنا دعوة أسألك واحد كحهم بيقول سماه مدحونا ويلا تقالما تدولا تنكي بيشة عن قارينني تلك الدنت في سنة كيلا لينني ملعون مقال حفيش يسوق ولا تقالما هو يدنا عاي أنت يقول صوت وري هلا هو إذا وحكوا سماه ويلي لا نقول صوت أرضي لكن إحنا يعني شيء لكن هذا هو شيء marka arinta sababtay inaad isku dhacdaan oo waliba aad isku gacan qaadaan maxay ahayd arinta waxa isku keenay ninka la yiraahdo Ramaax yani Ramaax waaran baa la soo jaray wixii waa sharci waxaan sharci ma hadda aynkaas noqoto dawladda inuu isdaafacnaa idinku waxaad tihiin xisbiyadii mucaaradka oo doorka dawladnimada qayb weyn ku leh oo waliba la xisaabtankii dawladda ah ee lagu xisaabtamayay inay mustaqbalka bedeli doonaan marka idinka muxuu yahay maxaa la idinkaga talagelayaa ee idin qorshaysan waxa weeyaan madaxweyne ma ogolaan in la xisaabtamo in la taliyo in la shaqeeyo in la karisaas gareeyo wax laga sheego ma ogolaan madaxweyne xajiis waan istilo anaga ma doonaa dalkayga martaba dagaal soo ka dhaca 1994 isa dagaal ku waday ana waxaan guddiin nabadda ayaan ahaa maanta haddana aan noqdo warlord uma diyaariyay marka talan isku noqon waa talan kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga Uud Faisal Ali Waraabe oo eedayn culus u soo jeediyay madaxweyne Muuse Biixi inta warbixin ka xisaab badan ku kulmeen toona daawadayaal waxaan idin kaga tagnaa sidaas nabad geliyo